deeqda lacageed oo ka timid hay-adda Alpha Trust oo ka shaqeysa caawinaada dadka danta yar iyo kuwa lixaadkoodu aan dhamaystirneen ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa la soo gaarsiiyay qayb ka mid ah dadka nugul ee caawinaada degdega u baahan kuwaasi oo ku nool magaalada Garowe ee xarunta Puntland. maxamed axmed warsame oo haysta wiil yar oo xaaladiisa caafimaad wax looga qaban waayay gudaha dalka Soomaaliya ayaa aad ugu mahad celiyay madaxda hay'adda Alpha Trust oo deeqda lacageed soo gaarsiisay waxaana uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee xilligan haysata ay tahay kirada guryaha oo laga saaro sabab la xiriira caafimaadka wiilkiisa. deeqdaasna waa ii timi aad ayaan uga mahad celinayaa. mar labaad waxaan ka codsanayaa hay'adda Alpha Trust maadaama ay isoo caawisay intay dhibka ka danqatay dhibku ka weyn ayaa ay haysta dhibka ka weyn ayaa wuxuu yahay waxa laga yaabaa wiilka 5 sano uu jiray waxaan la degay 100 guri oo Garowe ka mid ah oo kira ah sabab kasta oo guri kasta la iga saarayna waxa weeye sababtiisa caafimaadkiisana Ilaahay baa xilligu gaarayna ma garanayo maadaama xaaladiisu sida daanjarka ay tahay waxaan ka codsanayaa hay'adda Alpha Trust walaalahayga islaamka dhammaan hay'adda Alpha Trust waxaan ka codsanayaa in wiilkaas sidii guri isaga mulkiyadiisa ah sida ay dhibka uga danqadeen inay ii sameeyso deeqda ay ugu caawiso si aan ama ii kafaala qaaday intuu wiilka nool yahay meeshii aan ku hayn lahaa dhaqaalaheedii waana mahadsantihiin. sidoo kale hay'adda Alpha Trust ayaa waxay deeq lacageed ay soo gaarsiisay Nadiifa Cismaan Maxamuud oo haysata hooyadeed oo waayeela isla markaana ku nool magaalada Garowe waxaana soo gaarsiinta deeqda lacageed ay uga mahad celisay gudoomiyaha hay'adda Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye iyo Cabdisalaan Muumin oo kamid ah xubnaha hay'addaasi. Alpha Trust way mahadsantahay mahad baan u celinayaa lacagta sharafta leh ay siisay mahad baan ugu celinayaa Ilaahay mahadii weeye laakiin waxa jira إلى ربنا تيجي إن لا يقول يا أقل كذا ديسي دبدينا الإيسار سدق دقة محلا يوقفه كلنا لا يقصو بحي deeqda lacageed ee Alpha Trust ka timid lana guddoonsiiyay qayb kamid ah dadka gargaarka degdega u baahan ee ku sugan magaalada Garowe waxay qayb ka noqonaysaa dadaalo ay Alpha Trust ka wado gudaha dalka Soomaaliya iyadoo oo doonayso in dhawaan ay soo gaadho deegaanada Puntland si ay halkan uga bilowdo caawinaada dadka tabaalaysan ee gargaarka degdega u baahan. Umar Soomane, Universal TV, Garowe.